hay-adda xasaradaha adduunka ayaa waxay sheegeen in khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ee ka taagan gobolka Gado uu khatar amni ku keeni karo dalalka Geeska Afrika. Warbixinta warkani waxa ay haya Burhaan Diini Faarax. warbixin dheer oo ay soo saareen kooxda caalamiga ah ee xasaradaha ee magacooda loo soo gaabiyo ICG ayay waxay ku sheegeen xiisadda ciidan ee ka taagan gobolka Gado koonfurta Soomaaliya una dhaxaysa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Jubbaland inay keeni karto dhibaato amni oo weyn oo Geeska Afrika saameeysa. warbixintan waxaa lagu sheegay in ciidamada labada dhinac oo isku dhac uu ku dhexmaray magaalada xuduudda ku taalla ee Balad Xaawo inuu aad u saameeyay siyaasad ahaan iyo amni ahaanba dowladaha gobolka gaar ahaan Kenya iyo Ethiopia. kooxda ICG la yiraahdo waxa ay warbixintoodan ku sheegeen in ismaandhaafka ka dhex jira dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubbaland ay si dadban u saameysay dowladda Ethiopia ama dowladaha Ethiopia iyo Kenya oo labada dhinac la kala saftay. labadan dowladood ayay hay'addu waxay sheegtay in ciidamadooda oo qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ka socda ee AMISOM in haddana dhaqdhaqaaqooda gobolka aad looga dareemay isla markaana ay la kala safan yihiin labada dhinac taasoo xaaladda si adkeyn karta sida hay'addan ay ku doodayso. ICG waxay tusaale u soo qaadatay in dowladda Ethiopia ay ciidamo tiro badan u daabushay gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya ku yaala markii sidoo kalena dowladda Soomaaliya ay ciidamo gaar ah gobolkaasi geysay. ciidamada Ethiopia waxay toos u taageerayeen kuwa dowladda Soomaaliya waxaana gobolka Gado laga hoos saaray maamulka Jubbaland halka dowladda Kenya ciidamo dhanka xuduudda ay kala leedahay gobolka Gado ay keentay kuwaas oo iyana taageero siinayay ciidamada Jubbaland ee gobolka Gado qayb ka jooga. labada dhinac toos uma aysan muujin inay dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubbaland la kala jiraan hase ahaatee waxay baarayaal u sheegeen in ciidamadooda ay sugayaan amniga gobolka si ay uga hortagaan weerarada al-shabaab ka geysto. hay-adda warbixintan diyaarisay ee xasaradaha dunida ka faallootay ICG waxa ay sheegaysaa in sanadkii 2013 labada dowladoodba ay wada taageerayeen Axmed Madoobe in gobolada Jubbooyinka ama koonfurta Soomaaliya uu al-shabaab ka saaro hase ahaatee dowladda Ethiopia ay hadda u muuqanayso inay u wareegtay dhanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. arrintan ayay hay-addu waxa ay ku sheegtay inay hoos u dhigayso dagaalkii al-shabaab lagula jiray. khilaafka siyaasadeed ee Jubbaland ee labada dowladood waxa uu aad u saameeyay khilaafka siyaasadda Jubbaland ee labada dowladood wuxuu aad u soo ifbaxay markii ciidamada Kenya iyo kuwa Jubbaland ay garoonka diyaaradaha Kismaayo ka celiyeen diyaarad saanad iyo ciidanba waday oo Ethiopia ka timid 2 bishii Agoosto 2019 markaasoo u diyaargarowga doorashada Kismaayo ay ka socotay. Kenya waxay aaminsan tahay in ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu saaxiib dhow la yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana uu doonayo in dalka laga baabiyo nidaamka federaalka loona xiibsibto nidaamka dowlad dhexe sida kooxdan ay sheegayso. dhacdooyinka ICG ay soo xigatay waxaa ka mid ah howlgalkii lagu soo xiray Mukhtaar Robow oo Mansuur oo ka mid ahaa musharaxiintii u tartamayay doorashadii koonfur galbeed kaas oo ay ka qayb qaateen soo qabashadiisa ciidamo Ethiopian bishii December sanadkii 2018 iyo ciidamo Ethiopian oo la geeyo Galmudug dabayaaqadii sanadkii naga dhamaaday 2019 kuwaas oo ka qayb qaatay sugidda amniga doorashadii Galmudug ee uu ku soo baxay Axmed Cabdi Qoorqoor. hay-addan labada dowladood ee Kenya Ethiopia waxay ku eedeynaysaa ka sokow taageerada siyaasadeed ee dhinacyada Soomaaliya isku haya sida Jubbaland iyo dowladda federaalka in xataa saanad ciidan labada dhinac ay ku kala taageereen taasoo dhibaato ammaan gobolka oo dhan ku ah. xiriirka Soomaaliya Kenya ma ahayn mid wanaagsan tan iyo markii uu soo baxay sheegashada ay Kenya ku doonayso inay badda Soomaaliya ku qaadato hase ahaatee waana taas ay leedahay hay-addan sababta ugu weyn ee Kenya ku taageerayso maamulka Jubbaland. si looga fogaado amni darro gobolka oo dhan saameysa hay-addan waxay talahaan u soo jeedinaysaa in xoog badan la geliyo xalinta ismaandhaafka siyaasadeed ee gobolka ka jira.